walaalnimada la sheegaya islaamnimadu ma timaado iyadoo quluubtu bugto oo caafimaad aanay qabin. waxaa loo baahan yahay xanuunada badan ee ilaahay kitaabkiisa uu ka warramayo alghil والحقد والبغي والحسد waxaasoo dhan in laga caafimaad qabo. soomaaliga inaanan kuba wada garan baa suurtagale waa waxa laaliya wixii uur xumo iyo uur ku taallo iyo xaasidnimo iyo caloosha wixii dhibo oo dhan. qofka muslimkaa 3 meelood unbaa meel laga rabaa inuu deganaado, inuu ka hooseeya marnaba sharcigu ma soo dhaweynayo. martabad iyada waxaa gaadho oo qura dad gaar oo ilaahay doortay, waa martabatu liithaar. naftaada inaad nafta walaalkaa ka horu marisaa iyadu waa martabad dad gaara uun ilaahay uu qur-aanka ku tilmaamay wayu'thiruuna calaa anfusihim walow bihim wayu'thiruuna calaa anfusihim walow kaana bihim khasaasa. martabad labaad ayaa jirto oo ah walaalkaa waxaad naftaada la jeceshay inaad isna la jeclaato, an tuxiba liakhiika maa tuxibu linafsik. martabad ka hooseysaa jira labadaaba, waa tan aynu ka warramayno. waa qalbigaagu ina caafimaad qabo, at least inaad bukin, ugu yaraan inaad ahayn qof cuqdad iyo ciil iyo cadho iyo xaasidnimo qaba, ugu yaraan inaad noqoto qof laabtiisu ay caafimaad qabto. maanta masaa'il baa jira dadku ay fudaydsadeen laakiin aynu midhaheedii hayno. maanta caalamulislaami dhammaantii dhib baa ka taagan. ma aha inuu dadka ka xoolo yaryahy, ma aha inuu dadka ka caqli yaryahy, ma aha inuu dadka ka hobi yaryahy, waxaasoo dhan maaha. ilaa nuclear weeban bay haystaan. laakiin waa maxay xaqiiqada jirtaa? waxa weeyaan waa inay laabuhu bukaan, dabeetana ninba nin rabo inuu reebo, ninba nin uu rabo inuu ku ciil baxo, midba miduu bagaleeyay jabkiisa. mujtamac noocaasina afraad ahaanna ma guulaysto, midhmidh uma guulaysto, koox kooxna uma guulaysto, dowlad ahaanna uma guulaysto. walidaalika caalamulislaami waxa yaalla waa uurxumada muslimiinta dhex taalla ayaa midba mid reebaya. meel kastoo dagaal ka dhacayo gaalada qaar baa la safan, qaar baa dhan kale u safan, dhammaantood baa colaada iyo uurxumadu dhex taalla. dad badan oo maanta muslimiina waxay ku dhawaaqayaan war hala midoobo, oo soomaalidu ugu horeyso. soomaalidu way soo kartay, dhib tiro badan baa soo gaadhay, in rubuc qarni ka badan ayay dhulka taallay. hadda dad badan baa waxay leeyihin aan dib u midowno, dib u midowno. haddaynu bukno miyaynu midoobi karnaa? su-aasha waa taa. haddaan laabtu caafimaad qabin miyaad midoobi karaysaa? haddii xanuunada tani idan kelimatulmuslimiin inay midowdo waxaa ka horeeya caafimaad qabto, in dad wax wada yeelan kara ay noqdaan. qof kasta oo raba inuu ku dhawaaqo midnimo iyo guul iyo walaalnimo iyo dadna waxaa ka horeysa inuu ku dhawaaqo in dadkan iscafiyo oo isasaamaxo oo laabta bukaanka ku jira inuu soo baxo. qofkii laabtiisu caafimaad qabtaa ka fardan, qof qura xataa hadduu yahay, wuxuu seexdaa isagoo caafimaad qaba, isagoo aan noloshiisu warwariyo tiiraanya lahayn, isagoo aan laabtu huraynin. dadka badh baa waxay seexdaan iyagoo cadho la gamila. maalinba warka yare uu soo maqlo ama fadhidu ku-dirarka inta laga lahaa hurdadaba ka qaadaa, isagoo ciil qabu sariirtiisa tagaa. haddaba waxaan leenahay qofku hadduu calooshu bukooto ma noqdo qof bulshada la noolaan kara. ilaahay subxaanahu watacaala markuu nebi ibraahim inooga warramay baryadiisii, fiirso, nebi dhan oo rabbi soo diro oo ilaahay baryaya, muxuu leeyahy? walaa tukhzinii yowma yubcathuun yowma laa yanfacu maalun walaa banuun ilaa man ata allaha biqalbin saliim. ilaahayow hayhoojinin buu leeyay maanta dadka la soo saarayo, maalinta aan xoole iyo caruuritoona wax tarin,
maalinta qofka quree badbaadaya uu yahay qof caafimaad qaba laabtiisu. culamadu waxay yidhaahdaan meesha tan markay joogaan waxay yidhaahdaan salaamatu lqalb waa laba shay.